waa diyaaradii ugu horeysay ka duusha garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho iyadoo haysata ruqsadda Soomaaliya maadaama la bilaabay diiwaangelinta diyaaradaha caalamiga ah waxaana maanta ay u duushay magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug diyaaradan oo ah tii ugu horeysay kala mid ah kuwa gaarka loo leeyahay ayay shirkadda diyaaradaha Freedom ku guuleysatay in rakaab ay ka qaado magaalada Muqdisho maadaama toddobaadkii hore la siiyay diiwaangelinta aqoonsiga Soomaaliya Mukhtaar Xaamud oo ah maamulaha shirkadda diyaaradaha Freedom ayaa sheegay in shirkadda hore diiwaangelin ugu haysatay wadamada diriska ah dibna u celisay isla markaana ay qaadatay aqoonsiga dalka kuna guuleysatay in rakaabkii ugu horeeyay maanta ay ka qaado magaalada Muqdisho Gaalkacyo ay ku aaday gobolka Mudug ayadoo wada passenger full ah ay halkan ka kacday waa guul soo hoyatay xaqiiqatan oo aan la qiyaasi karin waayo 60kii sano ee dalka xorta uu ahaa markii ugu horeysay ee diyaarad private ama shacab u leeyahay taarga Soomaaliya ay ku duusho weeye saan ogna Somali Airlines waxay ahayd national carrier ama national flag ahayd dawladda qaranka Soomaaliyeed ayaa lahayd laakiin diyaaradani waa diyaarad ugu horeysay sigis Oscar ku kacday ama Soomaaliyeed oo shirkad private ay leedahay oo ah shirkadda Freedom Airlines oo ah shirkad maalgeliyaal Soomaaliyeed in ka badan 10 diyaaradood leh 12 diyaaradood leh oo noocyo kala duwan maareeyaha hay'adda dawladda rayidka Axmed Macalin Xasan ayaa ugu hambalyeeyay shirkadda diyaaradaha Freedom dadaalka ay gelisay dhaqangelinta habraaca ay dawladda Soomaaliya ku diiwaangelinayso diyaaradaha caalamiga ah ee ka howlgala dalka shacabku waxay maqleen jimcihii hore in dawlad la diiwaan geliyay laakiin macna saas uma sameeyeen oo maartay wax la taaban kar ma ahayn dawladdii oo maanta taagan shacabkii uu raacayo shacabkii passengerka loo sheegay iyadii oo muuqaal ahaan duulaysana aan media iyo cid walba la wadaagnay reality-geeda ayaa maantay ayaan marxaati ka noqonay waa guul u soo hoyatay shacabka Soomaaliyeed madaxda qaranka ballanqaadka ay sameysay ayaan ka dhawaynay dawlad oo diiwaan gashan oo Soomaaliya leedahay oo Soomaaliya ka diiwaan gashan oo duusha oo rakaab qaata hore uma jirin jamhuuriyadda intii la ogaayna ma jirin Somali Airlines oo kaliya jirtay maantay waa xorownay madaxda dalkaana xoreysay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo na xoreeyay waxaa lagu duuli karaa taarga Soomaaliyeed wiil Soomaaliyeed passenger Soomaaliyeed iyo ajnabi inta ka dhaxaysaba Cabduqaadir Shacab warbaahinta qaranka Muqdisho